wageni wetu wakiwemo Mheshimiwa MP wetu Safia Abdinur, MCS wetu ambaye leo wamekuja hapa kwa njia ya kufurahisha sana wakiwa pamoja, na protocol yote iwe observed. Naona marafiki zangu wengi kutoka Garissa ambaye ni watu ya jamii hii wamefika kwa wengi. Nashukuru. Bila kupoteza wakati, lengo letu ya kuja hapa leo ni kufurahia ile mambo mpya ambaye tumepata, ambaye ni sub county mpya wetu. Tulianzisha hii Bodai 1987, na wakati hiyo watu walikuwa wanashangaa, wanasema Bodai haina watu, kwa nini inaanzishwa, kwa nini inabuniwa na hakuna watu? Kile ambaye tulikuwa tunangojea katika hiyo siku ni kubuniwa kwa hii sub county, maana Bodai ni mahali ilikuwa na focus yake. Wakati viongozi yetu walipeleka application, ilipita bila shida. So ni furaha yangu kuu nikiona mimi bado naishi hiyo mahali inapanda. Nimeenda location, division, leo sub county, na nafikiri hii mahali kusema kweli ni mahali ambaye itafaa sisi yote watu ya Sama na marafiki zetu. Kwa upande ya mashamba ni potential area. Wakati mimi nilikuwa huko, iko mzungu moja alinitembelea siku nyingine Bodai, ameniambia baba yake alieleza 1956 ya kuwa wheat inaweza kupandwa hapa Bodai na iwe iko kwa archives. So tunashukuru viongozi wetu kwa kutuletea hii maendeleo, na insha Allah isiwe mdomo. Tumeneglect siku mingi tukawacha. Sasa tunataka tuelekeze mambo yetu yote, focus yetu yote iwe Bodai. Naomba viongozi watuongoze kuanzia leo, tusirudi nyuma, tuende Bodai. Tuko najua watapora hiyo ardhi yetu, lakini sasa tuko na macho na sikio. Viongozi ambaye wako hapa leo, tafadhalini, let us not waste time. Let us all focus on Bodai. Zote tuende huko. Kwa hayo machache nasema asanteni sana. Thank you very much. Hada sub-county markii la leeyahay waa district waxaan ugu soo kordhay waa cusub oo aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku mahadinayno. Dad badan oo ka soo shaqeeyay oo gabadhan ay ka mid tahayna waxay u noqon doontaa ayad lagu xusuusto. Saadaradeed haddaan samaynayno waa inaanu aragnaa sub-county-ga inuu yahay mid u imaaday reerka oo weliba ku dhaca meesha ku habboona. maxaa sababe meeshan Bay Forest annaga ariga la baan daba soconaaye waxaan ka baxaynin male. 96kii aniga daloolanahay 96kii kullana beer ku samaystay. beeraha badan way badnaan, laakiin taydan ka sheekayni aniga keligayga sug adeer ay khaldan macnaheedu. aniga taydi wixii daanyar cuna iyo wixii dad aan siino ogiye 34 loor baan ka qaatay. meesha wax lagu riyo ka baxaynin male. inuu district sub-county-ga weliba ilaa xuduudka inuu isqabto ayaan u baahannahay. saadaradeed annaga dadweynuhu haddaan nahay soo ma soo dhaweynayno sub-county-ga usubna, bal gacmo kor u qaada rag iyo dumarba. annaga codkayn oo buuxo soo kuma garab taagnin sub-county-ga. asalaamu calaykum waraxmatullahi. 82 markii aan joogay oo mashruucaan ka waday malabka geedaha babalga aan hoos fadhiisto
أنا فضي أقول سكر الحجرين لنكي بوهاد دقنا قلنا واقف dadkan la waxa way waa xiisa waa xumbo waxaan lahaa waa andrus Soomaaliya dadkii bariga meesha degay bariga bay noqdeen wax bay isku da'een haddana qaf waa la kala shaqay dhibaatana haska imaato xumo waxa ay imaado laakiin in lagu adkeysay waagaas haddii waagaas ay sidii loo degi lahaa oo lagu sii socon lahaa maanta lama ma hateen bima qatar inuu noqdo xududkeeda aan kan sala ka ahay maxamed beelay waxaan ka qabtay ilaahay asa wajalla og si loo dogo farsamada haato haddii ka faaloodo ma qorada noo dhici marka maxaan sheegaa tafadali beelay waa tan dhow meel ma jirto shaangaani aan tagno batal baan ku leena adduun baan ku leena waxa weeyaa ku leena هذا قلبات سنة لجوجا ما أنت نجح أنجلي شانغاني بدأ أكتر نجح أنجلي نجح بشير دار فقر هذا هو فقر سنة لا أكون هذا تكتوها هو تجي إذا سوماليا كإمالين آدقين ما قبل كذا ما وقت هاي مركز تفضلي وامل وضع أورون وامل برا أورون وامل برا واتن دوي أن شانغاني تجنو أن وحكة طبعانه marka ay maxaan leeyahay samawada hadii aad u jeedo maciishad wanaagsan dii u jeedo hala guudo booyaha hala dego dhulka hala qabsado meesha aanu ka arkayno aan ka tagayna booyaha gacantaan ka bixi waa u talagalsanya batrool baa ka soo socda waxyar batrool baa ka soo socda maxaa soo socda jid wanaagsan soo socda shaqo fara badan soo socda ay nabi wadaa ninkii mandheera joogay boodaa waxay leeyihiin laamo ka qabsaday beer adi maxaa ka xir adiga waddankaa leheede tafadali anima hadal baa makaray tafadal maxasana maxaan leeyahay ina aad si degdege alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahaygi subxaanahu wa ta'aala annagoo samawada nagu guuleeyey sublocation inaan helno oo dhulka annagii nabadda ahaa ee boodaay waa wada kasaynaa waa meel wanaagsan waa meel aan xoolaha dejin jirnay waa meel kutooka LMD aan ka shaqayn jirnay ilaahaygi nooga dhigay sublocation ilaahaygaasaa mahad iska leh ilaahaygaasaan ugu mahadnuqaynaa inta noo soo halgantay oo arrintaa ka shaqaysa oo na waa mahadsanta midda kale waxaan ku soo dhawaynaynaa martida sharafta leh waa idinku garab taaganna sidii tiraadeen sublocation waa nugu garab taaganna boodaay inaan dhisno oon beero ka falanno oon sublocontagaas inaan beero ka falanno oon degno oon xoolaha meeshaan ku daawaysan jirno oon ku xanaanaysan jirno wey meel kaloon haasanoo saldhiga ma leh annaga waxaan iska leenahay boodaay waxaana u leenahay milkada wuu bilowde waad keenteen samawadal aan la hadla samawadal waxaan ala hadla boodaay tabanina xasan aanaa reebaysa oo ortaynid samawadal dhan uu soo cararay intuu imaaday samawadal dhan uu soo dhaafay intuu imaaday intuu jeed badhaa dhoolhaw ka soo cararay kolbeelhaw ka soo cararay intuu socday weligu tagay weligu ka soo cararay intuu soo jeestay haddana intuu jeed meeshuu jeedo ma ka saana samawadal waxaan ii sheega samawadal tabankaan iyo xasan aanana boodaay reebaysay boodaay rabaan waxaan isugu geeyo boodaay waxaan isugu geeyba maxaa meel aan lagu noolaan karin qodax geed ku cunay aan lagu suuxay samawadal uu ka cadaan la yacde kii korsa joogo badda meesha galo kii qotiila joogo badda meesha galo dhulka gaar ka soo maro ma la qaadan karo dhulka aniga waxaan dhul ku leeyahay neefi iyo hindi dhaxdood waxa jiyaa ilaa muqdisho ay ka imaadeen iyo Nairobi kiishe jiyaana ilahin shaamba ay qabaan taragtooy gashadeen jiiraana waa iska horjeed nimankaas jidkii neefi galay aan noo dhaxay halko samawadal meesha ma joogo war adi maxaa meeshan oo suuxi meeshan maxaa oo suuxi samawadal waa dhaxal baa taxsan aan dhal waa dhaxal ma gooyada laga qaadan lahay dad ma samawadal dad ma ho oo ka soo carray intiisa dhan ka soo carray oo tuujeen tuusa waxa idin sheega boodaay waa meel aan hel karin waa meel ka soo faqdo biyaha imaanayeen
waa meel wax walba lagu abuuran karo waa meel lagu noolaan karo war meesha inta loo socdo qodaxda xoolahan iyo cawraha ma u jeedan inta u jeedan meero nala geliyay dhulka intuu ka jir waxay sheegaya walaalayaalow haddii sameeyay jiliin afka taagina meeshan ijaara xumooydin iyo isku kordhamaanina sangailu inta aada intuu socda inta loo socda intuu socda yangu ni machache tumesikia ile barua umetusomea bwana DC. Ile barua yako tumefahamu, tumesikiza na tumefahamu, na kama sisi ni wakaaji wa Ijara pamoja na Bodai tumekubali hiyo barua yako, tumekubali Ijara iwe sub-county yetu, Bodai iwe sub-county yetu, sio Ijara. Hiyo ni shukrani kubwa. Tunashukuru Mheshimiwa Safia Abdunur ambaye amefanya bidii mpaka ametuletea hiyo sub-county. Pia tunashukuru serikali yetu ya Kenya, sababu yeye yote imetoka kwa serikali. Tunashukuru Uhuru Kenyatta ambaye ni president wetu wa Kenya ambaye ametufanya hiyo jambo yote. haddii aan nahay dadkii Ijara oo samadeeyeen isku dannahay waxaan idinka codsanaynaa haddaad waxaad noo keenteen waan soo dhaweynaynaa oo ku faraxsannahay waxaan rabnaa hirikootadii sabkoontigii in Ijara laga dhigo ma ku faraxsantihiin ma ku faraxsantihiin Ijara waxaan u malayn waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol waxaad wadeen waan soo dhaweynay wax xumaan aan ka qabnana ma laha muxuu ah waana ku faraxsannahay shay aad muhiim baad noo keenteen laakiin walaalayaal waxaan idinka bareen Ijara yaa maal walba lagu joogsanay waa habartiin ka soo beeranay Ijara waa wadnihii Cabdalla Samuel inay aad u qiirane kutoka dhiciso ilaa dhaxdan laba aqal taagan labada aqal maxaa taagan laba nin oo chief sisan chief ya chief ule Cabdalla asaga maxaa ka takoorsamay inuu baashu tuulada asaga iska hay kale isku imaado uu banaan ku bixin madax doorta waa mahadsantiin sida nagu keenteen district sub-county-gan markastaana waa nigala rabaa Cabdalla Samuel wuxuu iska dhaadhicay asaga dhooni shirina daasiisa Samuel waxba u tartay laakiin Samuel ma rabo horumarkii wadankiisa aad wada arimaada in baa caloosha ka xanuunsan Bodai waxa la siiyay mana arki haayo wuxuu arkay Samuel wuxuu rabaa maanta Safia Abdunur Mheshimiwa Irshad Abdullah Harad Abubakar maanta dalaba ICC waa rab laakiin hada ICC division ma rabi waa shaqada ku shaqeyno waxaasna uma arkaano war Samuel inaa fakala siiya war Bodai Samuel ma iska leh hal qabiil iska maraho inta orato Cabdalla Xasan aadan mareey Bodai wuxuu reelay madar ilaahay wadankiisa oo noodiye Safia safartan doorasho soo galay ku dirmiisina ma lahayn haddana iyana ilaahay la garab galay waa keentay sidana nigala rabaa meel kastaaba inaa horumarka gaarsiisiin oo wiilasha shaqo la'aanta jiifash aan siisiin location kasta aan soo bixisiin intaas aan ugu salaamaana Reesangaala la soo fiiray Mheshimiwa Safia وسعبها سمول محان إني شيء ولا ليال أبيال دمانتين إني يمل حدين با السلام عليكم مرة محان إني شيء بوداي ودكتورين ودجمع سمول الليل annagana maxaan u ahayn boos celin Samuel waxaanu nagu qabanin malaho marka walaalayaal Samuel meeja ay u taho haday maxaa nin uu ka dhawaajiyay inay taho Jackson ma aha birta ay Jackson ku suran oo mar walba dad qoto yay gaariga u imaata ilaa 8 gaari u imaata diyaaradda iyo waxyaalo way taas Samuel jidka baargoon 3 kiiloomitir jiro oo la dhaho welu ku qoran biima afweynaha ka soo baxay bilis iyo muxuu kala dhaxmaray qarnada iyo ka dhixi horta meedaas aad leedahay Samuel hadii aad tahay annagana waxa nagu qabanin malaha waa degmo Samuel leeyo ku hareedisay ku ilaahay waa ku roonay gasidisay noogula soo qayliyay intaasaan Samuel aan u hayni
samawada wax degin oo midkol ruuxu leeyo ma jiro deegaanka waxaan rabnaa haddii la soo dhawaajiye walaalayaal in midkol laga midoobo oo midkol laga noqdo oo randoola la soo dego oon isgarabsanno oo jidkii iyo wax walba wixii midka aan ka ahaano marka aanin sii hadal badinay maxaan codsanayaa samawada in midka deegaankan soo kordhe wax u soo kordhe uu yahay samawada wax u soo siyaado uu yahay xilin u soo kordhanta ay tahay laga midoobo lagala soo dego deegaankana lala soo dego wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kabacdi waxaan u malaynaa samawada marxalooyin badan buu soo mare miduu maanta taagan yahay anigoo farxad baan la hadli lahaa farxad ayaan la hadli lahaa weligay aabahaydaliyo maanta iyo maalin kalaa barxe maanta waxaan ku faraxsanahay sabkoontiga boolahay maalinta labaadna waxay ahayd maalintii wiilkayga labaad miyareen subaxdii liikaane unbaa faraxan oo kale aa farxe samawadan faa'iido u imaata way gobolkan ma diidayno waan rabnaa waana soo dhowaynaynaa waanad ku mahadsantihiin madaxda noo keentay gobolkan hadal badan waxba ma taraayo boodaay inaan saboodgarayno meeshan u imaanay boodaay aan saboodgaraynaynaa boodaay waan saboodgaraynaynaa waa inaan soo dhowaynaynaa wixii shaqee wixii degmee wixii wax la qabade wixii hadale wixii kasta oo laga qabanaya boodaay diyaar aan nahay boodaay aan saboodgaraynaynaa maadamta waan ku garab taaganahay badan ka kala imaaday gabdhaha dhammaan culimada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa weeye waxaan u mahad celinayaa marka hore allah subxaanahu wa tacaala oo na makamiyey amaba noo sahlay sabkoonti kale distri kale oo ka mida labadii sabkoonti oo ka horreysay allah noo soo sahlay baan alla ku mahadinayaa kadib waxaan ku mahadinaynaa mashmuuca safiya cabdi nuur iyo duqeenna maxamed yuusuf xaaji oo hadda ducada inta looga maray allaha caafiyo intaa kadib waxaan codsanaynaa mashmuuca safiya weli liisma gaarin dadaalkaadana weli maarata waa bilaah waa dhiman yahay waxaan rabnaa ijaara sabkoonti iyo sangaa'ilu sabkoonti iyo qotilay sabkoontina waan sugaynaa insha allahu biidnillaahi alkariim middaa kadib waxaan malaynayaa boodaay waxay isu keentay hadday noqoto xoolaha hadday noqoto beeraha hadday noqoto badda iyadoo weliba hadda weliba sii dheer dekadda la yidhaaho daarusalaam ay boodaay sabkoonti ka tirsan tahay marka sidaa darteed waxaan dadka ka codsanaynaa inay gacmaha laisqabsado inay khilaafaadka laiska dhaafo waa wixii u horreeyey distri markii ijaara laga dhigay distrigii kale oo noogu xigay way sabkoontiga maanta noogu xigay kuwa kalena way imaanayaan waxa faa'iide ama mandhaliyo noo soo kordhayaan gacmaha isqabsanno aanan soo dhowayno midna aan ka noqonno na anfacaysaa insha allahu tacaala waxaanan codsani inaan rabbi subxaanahu wa tacaala ka cabsanno umuurtaannadana sidaasaad ay ku hagaaga ilaahay wuxuu leeyahy wainkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xadda maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إلهي ساسو ليهي آيات معنى هذا واد وذا تقانين أن ددالنا تعوى مدى الله بيسا هذا البطن إن بالله هدلي أبو أحمد دعالي الرقي هوري هذا الكدمي وحانا رجين النين والبوميشن أصو السفري أما أو إماضي أما الجوغي وجددي سينا يتهي ما شاونين وتاغير وحكا لما أهبو ذاي sabkoonti ruux walboo samawada leh inuu taageerayo waa waajib xaqa hadduu diidana qalbigiisa wax kalaa ku jira waa laa shaka ruuxi inna barnaamijka maanta ka labalabeeyo ama adhaho xaaladda waxaa fiicnaa dadbarkiisa in meeshan boodaay aanay joogino xuduudiyada qaarkooda inay joogaan laakiin reer boodaay laftooda way fiican yihiinoo waan maqlaayay xuduudka ma garanayo dhinacan xuduudka ma garanaayi reeboodaay warkooda waan maqlay waxaan dhihi lahay aaway magaciisa bashiir iyo rag baan arka raalle hal kelime boole mooja bakaya reeboodaay waxaan codsan lahay in dadaalkaad sii wadaan aad sii wadaan insha allahu tacaalana annagana waa soo wada soconnaa wasallahu calaa nabiyina maxamed waa ku farxe laakiin annaga waxaa way haddii nalala tashado
waxaan dhihi lahayn ijaara hirkoota laga dhigo laakiin odayaashay dhaheen haddii boodaay laga dhigay boodaay hadhow waa laga soo guura waxaa weeye arrintaas waa arrin ku jirto aniga waxaan u malaynayaa hadda waxaan jiraa 64 sano anoo dhallinyareeda waxaan damcay inaan boodaay wax ka dhigo 20 nin baa iiga shaqayn jirtay geedka jamaajiila la yiraahdo baan guran jiray sharcina ma lahayn oo keenay sharci ma lahaynba marka waxaa guran jiray la yiraahdo jaaga oo kukuya oo degan bakatooni ninka asaga albaab baan ka saaray markaasaan damcay boodaay aniga inaan ku dhisto guri oo dego oo samadal oo u qaaliyo oo mataqaan ah hirkoota ka dhigano waa lii jaajuusay subaxii dambe laba gaaray maantay geelina waa liiga rartay marka waxaa weeye annaga haddaan nahay samadal ma rabno inaan noolaanno inuu mataqaan hebel wax noqdo ma rabno dhaqan xumaasna annaga qabnaa xasinnimaasna waxaa nagu beereen reer koosta oon u dhownahay marka waxaa weeye sidii hadday maxamuud cali uu dhahay waxaa weeye ijaara waa hirkoota samadal oo dhan bay u dhexaysaa horaan galtida markay imaato waa lagu xiri jiray waxaa la dhihi jiray markii gabaanada la gooynay dabaalow aahiyo ceelkii ijaara aahiyo waa la dhihi jiray saasaa intixaam looga qaadi jiray galti mayla garanaynin galti badan baa kibaandhada loogu diiday markaa meesha iyada inay hirkoota noqoto masalaani iyo boodaay hortood inay hirkoota noqoto aan rabnay annaga haddiina waa tashadana muxushma waxaan dhihi lahayn ijaara hirkoota ha noogala dhigo marka laakiin nolol keena sabkoontiga nolol keena haddaan nahay annaga samadal waan ku faraxsannahay aadaan ugu faraxsannahay laakiin annaga intaas yar oo talada nalaga gafe baan kastoo ka yar xumaanay oo nere mataqaanaa waxaa fiicneed ijaara hirkoota in laga dhigo marka waan mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma ogoli ruuqa meel ay martay namaray aniga waxaan xisaabnahay boodaay aan ahay nin boodaan ahay waxaan rabaa sab distriga in liisiyo gulibo reer boodaay haddaad tihiin garabna waan idina ruuqoona ma rabo waan ka dhexe reer ijaara reer boodaay reer sangaa'idu reer masalaani madaxadda jumla waa salaamantihiin walaalayaal arrimo fara badan oo kale baan rabay inaan ka hadlo markii hore ee mikrofoonka tiigsanay wax kale oo meeldhaladoo kale yaa rabay inaan ka hadlo laakiin aniga haddii bareeshaan waan qaba waxyar hadduu itaabtana waxaa laga yaabaa maskaxdana uga yarwareegto khayr baan u rajaynayaa marka koowaad waan taageersannahay boodaay waan taageersannahay wax dhaliil aan u yeelayno ma jirto wax application had meeshan aan dhiganayno ma jirto waxaan ku dhaliilayno ma jirto kullad Mheshimiwa Safia DCC na wazee duqay badan oo magac aan sheegi karnaa jiraan la aad ay badan yihiin duqayda hadana waa Ramasalaani aniga waxaan moogto wardiyayeen cabsi badan ay geliyo duq Bashiir arkay Musee Madoy duq Maxbuub hata MC gis anyway saa moogto noqt يعني ده إجارة وكرده ما أنت صرني هذا مثلاً وكرده دق محبوب أنا MC أول صفيان ما هو بينهم عمل بريء إنه إجارة فوق الشيء مزي على عمره جوان نعاس دق عرفه جوان هذا الملك جردينا وحلا هاي أنا وانا ردم بيه ما بس الفيلم هنا لكن كنسي عبد القادر ولا جبوله ملهان ما في كواس ولا جبوله هذا هو كومه ولا ماشي كنسي هم لا عبد الحراد أبو شيء هذا أنا عين سامر تروحوا الناس يا الله يشين كلام تناس وقولي ما يجينا وعرنتن هل دبك مجرى نبيه وحنا هنا لله هنا إسكان أنا أرتفع مسلاني مجا عن إجارة أنا مشغولة بالنوج اللي فينا مسلاني ذي مجا إجارة أنا هستا سابقتي نرت مسلاني مجالدي إجارة ذي أنا هستا مجا عن بوداي سب كاونتي إن وحكة قوامله لما أنت ما يسكو قلنا هرت ديستري مجا عشان مقاي مجا عهان إنه بوداي ده هذا وحبك ما بقمنه وسوي قابنا ما دام الله وقتي هلا سو قابي هنقولي ما ديستري مركو ما المهوكين هنقولي مكاني اجي جوجل لا شابه ده في حبان ده هنقولي كده سماه هنقولي وان كستا سمادر او حالها انه wax ka soo gaaro dadkana waxaan xanti iyo xalaaga ma fiicno xalaaga ma duqana saxaabana waa iska sayna darhad gabana uu noogay wuxuu dhahay arintii boodaa jirta cali bunan uu soo taageeray wasiirkiisa sheegay kuma sii noqonayo wuxuu dhahay account looga baahan yahay waan taageera qoys ahaanna waa loo sheegay annagana waan u sheegnay qoys ahaan macnaha si qaas xasan aan fadhiga ku soo hagaagay iyo maanta arinta taasna hal la fahmo laakiin si qaas aan ugu tagnay inaan dhahno arintaas jirta oo naga taageero markaan u tagayno dhahayna naga taageero mabda waalan si qabno Soomaaliland taageerno
in la fahmo waa muhiim laakiin hunguriga jiro waxoogaa waa iska saynaaye waxaa la rabaa in la isku dhexdhafnaado la isku dhex jiro dad wuxuu leeyahay waxoogaa aniga xasan aadan heesoo celiyaane 98 district xasan aadan ha ahaado war waxaan dhahay in la isku dhex jiro fiican waxoogaago lugooshimaha nimaha waa isku dhex darno si dad kalena wax u helo marka arrinta jirta madam meeshan waxaan u imaanaa in arrintii buudaay oo lagu launch gareeyo waxaa kaloo u imaanaa inaan isku fahanno xuduudkii sidii meesha ay ka koobnaani macnaha inta buudaay district dhulka ay ahaane waxaan u maleeyaa taas dadkaan badan haddii la hubaalo dhex keena waa isku mashquulaynaa kalama dhammaanayno laakiin waxaan rabnaa ballan ilaan dhiisiga wax badan ka booday afsooxan loogu sheegi doonaaye annaga noomu yeerin waxbana lama socodsiinin hadda waxaan u malaynaa adiga asaga waxoogaa in hoos ka ogtayn in rumasheedaa fiicana moog waxaan rabnaa middan xuduudka la hagaajinayo inaan iskaga wada imaanno ani dadkii aan aaminsanaho inay aqli ugu saacidayn karaan odayaala u yeero caddow dadkaana aan ka wada heshiino middan xuduudku saas ahaana sababtuu ahaanayna waxaa waaye qoys kasta inuu dheef ka helo waxa waa district samoodal in loo dareynin dhinacu yar badan haddaan sheegi waayona waa munaafiqnimo waxaan rabnaa in laisku dhexdhafnaado oo nin walba uu dareemo wixii buuday ka soo baxo inuu heli karo oo buuday cabdiqaadir walaa ree qaasanaa degnaay adiga haddii wuxuu fiid inaan bilaabno aniga wadaadkan ka saran boqoysoo waa caajir wuxuu rabana waa sameeya ilan darafaan joognaa buugta marka haddii wax ogeyd waa bal taas gooni waa hadli doonaaye laakiin arrintan waxaan rabnaa wax dadka wada gaaray inay noqoto oo yaan loo arkin si kale siyaasadna kuma jirta hungurigana galleeyada iskugu imaanaynaa committee loo bixinayo districtna committee la'aan marka arrinta waa inaan iskaga soo noqono oon duqey qabno oon ka tashanno oon insha allah aan ka heshiino magaca buudaay nin dhibka qaba ma leh nin kasta way soo dhaweyni dhulkoo dhan aan ku xajisanaynaa waxay noo noqoni daraf laamaana soo gelaysaa nin waxaas ka dhagala oo samoodale ma jiro waana dhul barwaaqo ah waana noo muhiim waa si kastaaba waxba kama qabno marka sidaas la ajligeed maadaama ijaara ay taho ijaara sidaadii ward ay u ahayd oo mushaar xukumay in intaa laga dhigo districtga oo handaaroodan ma aragtay berri markii laga dhigo sangaa'ilu loo dhihin saan oga soo goyna akay maaliyaakay sida caddo ugu sheegay aan naftayga waxaan leenahay waxaan u baahannahay division oo kale maadaama oo ma aragtay wax uu soo kordhay intii la gaarin districtga marka midaasna waan ka tashanaynaa waxaan ku tashanaynaa anagoo fadhinaan ku tashanaynaa santiin sidee maanta loo imaaday hal maalin oo ma xasuustaa bise noocan oo kale ah weligii muse yuusuf xaaja nani keeni jiray moy aan xasuusta bise saan xiise loogu qabo xiisadda markii loo qabo waxay ka dhigan tahay inaan muhiimad gaar aan siin hayno nagadaaya dinisnagaamsa inaan muhiimad gaar aan siin hayno boodaay subcounty boodaay subcounty waa laf dhabarkii samalool ninkaan fahmaynin iyo ninkaan fahansanayna maanta waa arrintii igu kaliftay inaan gaari ka soo qaato laamo oo ka soo qayb galo arrinta waxaa loo keenay samawada mooga ruux shakhsi ah looma keenin horta maxaan u malaynaa ambiye hore aan soo marayna arrin sidan ama noo aftiinto horta anagu waan dhoko wadaan oo samawada runta la rabo in la isku sheego maamada horta way diday shaqeyn Allah siiyo annaga kolley sangooley handaaro ilaa waxaan rabnaa boodaay sub county aan taageeraynaa oon garab u nahay mana ka harayna waa meesha annagi waxa la wixii la qaybsanayna waan la qaybsanay waxaan rabnaa in garab la siiyo gacan la siiyo meesha samawada laale nin shakhsi ma laho aad u dhageysta samawada la iskale nin shakhsi ma laho qoys ma laho dheefti ka soo baxda waa qayb samawada dhan qaybsana marka waxaad ogaanaysiin gacan idin siinne sisi tuko tayari usiku na mchana boodaay sub county wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh thank you very much iskugu imaato aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan mahad gaar u dirayaa MB-gayna Safiya Cabdinuur oo shaqada wanaagsan noo qabatay midii MCA luuqa uu sameeyey yaan ka hadlayaa wax yar waxaa ku qoran waraaqta uu soo qoray uu leeyahay wuxuu wato asaga kale garanayaa waraaq Garissa County ku socota meesha ka socota Garissa County gabana kama jiro gabana ma jiro marka waxaan sheegaynaa waxa iyada wax soconay ma waxaan soo dhaweynayaa mheshimiwa Safiya laakiin sida kuma soo dhaweynaya mheshimiwa sida kuma soo dhaweynaya السلام عليكم